waxaa beryo waa cusub goobtuna waa deegaanka Xillibi oo ku caan ah milixda ama cusbada dabiiciga iyadoo milixda ay ahmiyad weyn u leedahay nolosha aadanaha iyo dhaqashada dunyada loogana adeegsado siyaabo fara badan dunida dacaladeeda ayaa waxaa laga helaa ama ay ka dhalataa marka la joogo deegaankan waro ama harooyin tiradooda ay gaarayso ilaa 30 goobood oo ku teedsan deegaankan Xillibi iyo hareerihiisa ilaa Maaseego iyo dhulka ku xeeran waa kan mid ka mid ah bulshada deegaanka oo sharxaya sooyaalkii iyo sida ay u samaysanto milixda laga helo aagan hadba heer soo martay barigii dawladdu waxay soo martay iskaashatooyin iyo nidaam oo dawladdu isku dayday inay maareyso way ka soo gudubtay ka bacdi dadka degan ayaa maareynayay oo khayraadkeeda wixii la soo baxayay daafaha Soomaaliya iyo xuduudaha maaragtay geeska Afrika dadka nala sida Ethiopia, Kenya, Djibouti ayay maaragtay safar u aadaa loo iibgeeyaa dadkuna ka soo doontaan xilliyada loo jecel yahay waa xilliyada roobku yimaado oo xoolaha oo kale la siiyo laba xilli ay leedahay oo la yiraahdo diraacada iyo xagaaga oo kale labada waqti u kala dhalataa roobkaas markay ku baxdo adiga muddo 2 bilood ay maaragtay ay ku bislaataa iyo wax la mid ah hadba heerka biyo la egyihiin ku xiran tahay isla maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya habka deegaanku uga faa'iideystaan milixda iyo marxaladihii kala duwanaa oo ay soo martay soo saarista cusbadu soo bixitaanku wuxuu ku bilowdaa markaas ay bislaato badeel ayaa lagu sameeyaa yar 5 kintaal 6 kintaal loo kuusaa dan markaas ka bacdi banaanka la geeyaa waxa lagu qaadi jiray waqtigii hore jawaan weyn banaanka lagu geey jiray dusha waxa ku xigtay ka bacdi markii sidaas loo kuuskuuso hadana waxa lagu qaaday gaari gacmo yar yar ka bacdi gaari dameer hadii 10 kintaal amal la saarayo laba buurood oo kale la saarayo hadda waqti xaadirkan waxay maraysaa gaarigan yarka oo halka tan ah iska rogada in maarta lagu qaado haddaba shirkadda National Salt Industry Company ayaa dhawaan dhamaystirtay dhismaha warshadda milixda Xillibi taas oo wax badan ka bedeli doonta hanaanka wax soo saar ee milixda maxalliga iyo hababka looga faa'iideysto xarunta warshadda ayaa ka kooban dhismayaal isugu jira xafiisyo deegaan masaajid goobo nasasho goob lagu cunteeyo ceelbiyood iyo warshadda biyaha sifaysa oo casri ah dhismaha hangarka weyn ee warshadda oo u dhexaad u noqon doona wax soo saarka milixda shirkadda Naasico ayaa ku fadhiya dhul baaxadiisu tahay 2550 mitir laba jibaaran kaasoo ka samaysan shub adag hoyna u ah qalabka warshadeynta milixda waxa uuna ku fadhiyaa dhul ballaaran oo ka tirsan xayndaabka warshadda waa kuwan qaar ka mid ah qubaradii ka shaqeeyay rakibaadda iyo xirxirista warshadda oo sharxaya qaybaha ay ka kooban tahay iyo hanaankeeda wax soo saar qaybtan koowaad waxa ay burburin doontaa milixda kadibna waxa ay ka dhaqi doontaa dhiiqada milixda ayaa marka hore u socon doonto halka ciidda ama dhiiqada iyo qashinkuna ay ka bixi doonaan qaybta hoose soo dhawaada magacaygu waa Master Cheng waxaan ka imid dalka Shiinaha waxaan Soomaaliya u nimid in aan xirxirno qalabka warshadeynta milixda waxaan ku dhameystirnay hawshaasi muddo 1 bil gudaheed ah iyadoo ay nagu gacan siiyeen injineero iyo farsamayaqaano Soomaali ah awoodda wax soo saar ee warshadani waa 15 tan saacadiiba qaybtan waxa ay shiidi doontaa milixda waxayna u gudbin doontaa marka si wanaagsan loo riiqo milixda marxaladda ugu dambaysa ee warshadeynta taas oo isku dari doonto cusbada iyo maadada iodinta dhanka kale guddiga sare ee shirkadda Naasico oo safaro shaqo ku soo gaaray xarunta warshadda milixda Xillibi si ay ugu kuurgalaan guulaha laga gaaray taabagelinta iyo hayaanka geediga horumarinta warshadda ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida ay u arkaan heerka ay haatan howlaheedu marayaan dunida casriga ah waa iska tuulo maanta waxa ka shaqeynaya hadda waaba Jaynii waad arkaysaa waxa ka shaqeynaya waa qalab casriya iyo shaqo loo bedelayo sida caalamka oo maaragtay manualki laga bedelayo loo bedelayo sida caalamka u shaqeeyo warshadani waxa ugu talagalnay inay u shaqeyso sida warshada caalamka oo aan ka gudbino meeshii dadkaanu taagnaayeen iyo dhibaatadii lagu qabay maaragtay cusbada wax soo saarkeeda culayskaysta inaan ka qaadno oo u gudbino heer caalami oo maaragtay import export iyo maaragtay gudaha in laga isticmaalo
fikirkan muddo badan fikir laga soo shaqeeyey oo dad badan isku dhiirigeliyay oo fadhiyo badan loo galay buu ahaa waxaana lagu talagalay inay dadka iyo dalka iyo ummadaba wax u anfacdo annagana wax noo anfacdo waxaan jecelnahay haddii ilaahay idmo inaan annagoo isle waxyaalo badan uga faa'iideeya bulshada meesha ku nool annagoo ka ganacsataa faa'iido ka raadinayna annagoo jecel dadka Soomaaliyeed inaan ku dhiirigelino inay dalkooda u soo laabtaan oo ay warshada ka samaystaan ilaahay baa ku mahadsan meel fiican ayay hadda noo maraysaa oo ay soo gaartay waxaan u malaynayaa meeshaan dhismaha hoolkan iyo warshadda in ku dhowaata ilaa 6 bilood ayaa lagu dhisay marka waxaan is leeyahay aad iyo aad ilaahay noogu fududeeyey waa si fududay noogu dhammaatay mid ka mid ah howlwadeennada warshadda ayaa sidoo kale ka warbixiyey kana faallooda waayihii kala duwanaa iyo tallaabooyinkii hore looga ambaqaaday meeshan markii hore waxay meel goofa oo bannaan number 2 markii aan nimid si loo cabiro dhirtii laga falay iyada dhan amsana la falay markaas kadib ayaa waxa loo gudbay heer in dhagax la dhigo oo dhismahan la sameeyay darbigan weyn oo wareegsan waxay qaadatay 7 bilood in laga shaqeeyo dhisme iyo la sino dhulkan mangaroonahan la dhigo darbigan la wareejiyo guryahan la dhiso kadib waxyaalahan qabsaday oo waxa ugu daray markii ay timid warshada alaabta warshada ay timid culayskii noogu badnaay wuxuu ahay markii baabuurta aan dejinaynay arrintaas oo laga ilaalinayay laamiyerigan saaran suufka ku jira roobka caqabado badan aan laga qabsaday si aan uga maaragtay taxadarno in aan roobku wax yeelayn marka kadib dadaal kadib alxamdulillah waa ku guuleysanay heerkan aan arkaysa maraysa maanta mar laga joogo hal sano baraan shaqadan bilownay dhammaan shaqaalaha warshada ayaa iyaguna hela tashiilaadka iyo agabka badqabka sida uniformka shaqada kaba adag iyo koofiyado halka tallaabooyin looga hortagayo cudurka coronavirus iyo fariimo ka hadlaya ama ka digaya halista shaqo ee la filan karo ku xarran yihiin goobaha munaasibka u ah waxaa jiray hab ah inaad kabahaas oo buudka aad xirataa koofida waa inay kugu jiraataa habraacaas badqabka ah markaan raacnay waxaa meesha noogu soo baxday in shaqaalihii ilaah baa badbaado iska leh inta badanba ay badbaadeen oo wax dhibaato aysan naga soo gaarin haddaba guddiga sare ee shirkadda ayaa kulamo gaargaar ah la qaatay shaqaalaha warshadda odayaasha iyo bulshada deegaanada Xinlebi iyo Saygo sidoo kale kulan duca isxog waraysi ah oo ay wada qaateen guddiga sare ee shirkadda Naasiko iyo bulshada deegaanka oo ka dhacay gudaha hangarka weyn ee warshadda ayaa la isku weydaarsaday erayadan wixii hore waxay ahaan jireen survey maxaa wadiin maxay tahay wax cad oo practical ah waxa la idinkugu yeeray 2 arrimood inaad aragtaan waxa la qabtay koow qodobka labaad waxa weeye sidii looga faa'iideysan lahaa maanta waxa weeye horta maandeeq ayaan dhinacyada ka fadhinaa ninkii nin walba u qaado aanaheedaan u fadhinaa way godlan tahay riyadii waa dhabowday waa qaadanaynaa waa soo dhawaynaynaa si guul iyo sharaf leh ilaahay ha nuugu dhammeeyo ma odayaasha hoggaanka oo dadka u ah maslaxa weyn iyo macno weyn baa ku jira meeshaan wax weynaa ku jira adunkuna soo dhawaynay amaalaad ku mudan tihiin waa wax qaali oo qiimo badan qofka aqligana waa u jeedaa gunti iyo gabagabadii halka maalmo kooban ay ka harsan yihiin ka shaqaysiinta warshadda badeecada milixda ay soo saari doonto ayaa xambaarsan ififaalo filasho wacan u ah in milixda dalkeennu tahay macdan maalgashi mudan